Faalaynta iyo faaqidida wararka ugu waaweyn ee saxaafadda Soomaaliya ayuu haystay magaca Fahad Yaasiin toddobaadkina weydaartay waxaana si weyn loo qaadaa dhigay ka celintiisii Muqdisho oo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya lagu eedeeyay inay ka shaqeysay iskana kaashadeen Jamhuuriyadda Jabuuti. Caararnimadii hore ee Talaadada maanta ayaa laga warhelay inuu tagay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Fahad Yaasiin intii uu ka maqnaa Soomaaliya waxaa dhacay isbeddello siyaasadeed isaga ayaana udubdhexaad u noqday xiisadaha kacay ilaa ay gaareen in ra'iisul wasaare Roble shaqo ka joojin ku sameeyo laftirkiisa oo ahaa agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidaas oo kale in Jabuuti garoonkeeda diyaaradaha laga celiyay dibna ugu laabtay Istanbul ayaa qayb ka mid ah noqonaysa maalmaha siyaasadeed ee uu soo maray waxaase uu hadda ku sugan yahay caasimadda Muqdisho. Imaanshihiisa caasimadda ee maanta kadib waxaa la isweydiinayaa maxay tahay shaqooyinka hor yaalla ee la ogaan karo Fahad Yaasiin waqtigan. Inkasta oo uusan ahayn siyaasi la faalayn karo marka laga hadlayo socodkiisa gaaban iyo hadalhayntiisa badanna haddana qorshayaasha la og yahay ee laga sugaya waxaa ka mid ah xogta sargaalada Ikraan Tahliil Faarax oo ay warbaahinta dawladdu tamisay bilowgii bishan inay dileen Al-Shabaab kadib markii warkaasi uu ka yimid xagga Niisa. Fahad ayaa loo iclaamiyay shirkii amniga qaranka sabab la xiriga xogta uu sheegay inay ku soo bandhigayaan ee la xiriirta kiiska sargaalada Ikraan Tahliil waxaana la sugayaa macluumaadka waaweyn ee uu hayo Fahad Yaasiin ee la sugayo. Shirka amniga qaranka oo qorshuhu ahaa 18 bishan waxa uu dib u dhacay markii Fahad uu imaan waayay Muqdisho oo laga celiyay Jabuuti. waxaase hadda indhaha lagu hayaa qabashada shirkan goorta la iclaamin doono iyo xogaha dad badan ay ka sugayaan ka ogaanshaha kiiska Ikraan Tahliil oo noqday mid qaran. dhinaca siyaasadda imaanshaha Fahad Yaasiin waxa ay faa'iido u tahay fiila Soomaaliya oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ka mid yahay kaadiriinteeda siyaasadda xilli waliba ay taagan yihiin arrimo la xalila doorashooyinka golaha shacabka. sidaas oo kale mucaaradka qaarkood ayaa cabsi ka qaba in faragelin fiila Soomaaliya ay ku samayso doorashooyinka dhawaan ka qabsoomaya gudaha caasimadda Muqdisho ee golayaasha aqalka sare iyo golaha shacabka ee ay leeyihiin beelo kala duwan. khilaafka Farmaajo iyo Roble oo ka dhashay kashoojintii Fahad Yaasiin ayaa wali taagan. imaanshaha Fahadna waxa ay ku soo beegantay waan ay garwadeen ka yihiin qoorqoor iyo gudoomiyaha baarlamaanka taas oo iyana si weyn indhaha loogu hayo. kasokow galaangalka Fahad waxa kale oo uu saameyn ku leeyahay dowlad goboleedyada qaarkood isaga oo saaxiib dhow la ah dhammaan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya falkiya waxaana indhaha lagu hayaa tallaabooyinka uu qaadi doono iyo sida uu saameyn ugu yeesho geediga siyaasadeed ee waqtigan dhigaysan ee ka aloosan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. si gaar ah dadka faalaynaya arrimaha siyaasaddu waxa ay leeyihiin Farmaajo waxa ay uga dhigan tahay inuu haysto mid ka mid ah saaxiibadiis oo hadda ku sugan gudaha dalka. culayska ugu badan ee waqtigan taagan ee kiiska Ikraan Tahliilna uu yahay midka weyn ee fiila Soomaaliya iyo Fahadba laga sugayo in ay si rasmi ah u sheegaan waxa rasmiga ah ka taagan. ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta kale Islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.